gudoomiyaha degmada Agabar Axmed Aadan Cumar Geeli ayaa kormeer ku soo maray deegaanada hoos yimaada degmada Agabar ee beeraleyda. Kormeerkani waxa gudoomiyaha ku helinayay taliyaha degmada, Zalaadiinta Cuqaasha waxgaradka iyo aqoon-yahanka degmada Agabar. Kormeerkani ayaa ujeedkiisu ahaa indha-indhaynta iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka beeraleyda ah ee degan tuulooyinka kala duwan ee hoos yimaada degmada Agabar. Kormeerkani ayaa uu gudoomiyaha degmada Agabar ku soo maray qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan deegaanadani hoos yimaada Agabar. Kormeerkani ayaa ahaa mid ku tusinaya xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadka beeraleyda ah. Dadka beeraleyda ah ayaa waxaa saameysay abaar ba'an oo gaadhsiisay qaar ka mid ah beeraleyda heer ay iskaga tagaan beerahoodii, halka dadka qaarna ay weli sii dhex joogaan. Beerahan aad arkaysaan waa beero ay gebi ahaanba gubatay dhirtii geedweynta ahayd ama iyada oo u dhimatay biyo la'aan. Beerahan ayaa ahaa beeraha laga waraabiyo ceelasha, balse imika ceelashii waxaa laga waayay biyo. Beeraleydan ayaa sheegay in si ay biyo uga helaan ceelasha ay gacantooda ula tageen oo ay qodeen 8 ilaa 9 joog. waxaa sababay waa biyo la'aan oo horta abaar baa dhacday. 6 sanadood baa abaartaasi way nagu soo socotay. markaa sanadkayna saartay faraha 5 faroodba wayna saartay sanad. markaa xoolo yar baanu la dibnay dee qolkii beertiina ingegtay. daayeerkina waa nagaa uga tagnay arkayso. laxa jeclana waa nigaa layaambada imika dee ula dhex jooga. soo maad garan dee natiijada billaah ilaahay raxmadda idiin lisoo ilaahay nooleeyo dee wax kaleba lagu beriyo rogaal celin weeyaan imika haddii alla ka dhigo. laakiin waa biyo la'aan, meeshu way biyo yar tahay. aniga iyo wixii naga sarreeyaaba biyo ma hayo. kuwa ila mid iyo kuwa iga daraniba way jiraan oo lagaba guurayda. ani reerkii baa weli sii dul yaal. markaa nin wal oo beertii caynkaa ka noqotaaba dee waxay noqotay inuu tuulada soo dego oo dadkii kale ee sii qirinqiirayay beerihii dee ula maashado. sidaa aawadeed beertan maanta wax laga qaban karayaa waxa weeyaan gacan bilaadan way dhaaftay in riig iyo wixii la mida beertan loogu soo gurmado maadaama beerihii kale oo dhan dee laga farabaxay. sidaasaanu dawladda iyo hay'adaha dawliga ah weydiisanaynaa oo aanay biyo ka dadkan beeraleyda ah ee abaartu saameysay ee ku dhaqan degmada Agabar ayaa sheegay intii dadka abaaruhu saameeyeen ee deegaamada Somaliland gurmadka loo fidinayay in aan ka deegaan ahaan aanay arag cid gargaar la soo gaadha ilaa iyo hadda. gudoomiyaha degmada Agabar Axmed Aadan Cumar Geeli ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta gobolka iyo xukuumadda dhexeba in dadkan ay abaaruhu saameeyeen ee beeraleyda ah wax lagu soo taro. degmada iyo daafaheeda waxaan saaka waxaan ka soo baxnay wadugeedin intii soo dhaxmarnayna xaaladda wadanka ku jirta jeedeynteedii waa loo wadanka wada xisan in beeraleydi xoolo dhaqatadu iyo beeriyahaba aad iyo aad u liidatay. maanta aad ku siiyadna daran leh beerihii ka farabaxday muuqaalkooda aynu hayno waa beeraleydi run ahaan 3 doox maanta aad iyo aad ayay dadka uga soo baxay sidaas u liitay. sababaha aawadeedna ilaahay baa baahi kasta dabooli kara. waxaan halkan maanta aan uga baaqayaa jamhuuriyadda Somaliland iyo gobolka Gabileyga inay ummadda wixii taageero ay u heli karaan ay la soo garab joogsadaan waxna kala qabtaan inta bilaadantinimo. waa Mustafa Axmed Samaqaar, wararka STN magaalada Hargeysa.